all this conflict. Why we create this conflict between the Islamic, between the Shabab, between the government, between the Ethiopians, all these things. The problem is because the hungry people is hungry. The hungry people is hungry. You know, if the people have nothing to eat, nothing to do, there is no job. So they will think everything to fight and to destroy each other. He said, the people who belong to this property, they came and brought those property and they went to this is the woman that belongs to this there. حمر intaan degi rabnaa intaan qolol aan laga siiyay xamar xabalaay xabada iyo dad dilis iyo isbaaro kideena noo baawaana laga dhacay rabay marka nafteena la soo oradnay miskiin aan nahay anaga marka nafteena u soo oradnay nafsadeena u soo cararnay ilaahay dartiis hadda irid u baxno qoray aan noor yaal xasuubinayna marka inta halkaan iska soo muslimkeena hooyo abaalaha nooga dhigo aan qaxootigeena soo degnay inta gacantana loogu hayaa saa inuu ku badbaadno qaxootida oo ilaahayna nagu badbaadiyo alaabteena xataa halkaas ku xareysanay على الروبة نقداي إنتان قوسي لعناي هكا صباعي ما هيسنو جوجل ما هيسنو إنت هيسن إنت نوغ بحدي نوغ كلا قاضي وبيانك أنا جهستان جروج إتوبيانكي أنا جهستان أي صباح نحل وصوت طورة أنا جه مركن طورة يعني وين حتى ونوغ داوع ماي أدم فهمت Somalis have to reconcile among themselves. We believe with the reconciliation of Somalis, it will reduce the need for external actors to take advantage of that situation. Whether it is in a form of illegal fishing or whether in the form of external forces coming to the country to help the Somalis or to protect the space created by this lawlessness. Somalia ha seguido al pie de la letra el guión de los malditos escrito tras la descolonización de África. Primero un gobierno de corte socialista en los 60, seguido por un golpe de estado militar. Después, con la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría, fue pasto de las mismas llamas que abrasan África por los 4 costados desde entonces. Y al final, ha terminado hundida en el fondo de una trinchera más de la guerra global contra el terrorismo. Somos 3 batallones, se llama. 3 batallones, 1 de Burundi y 2 de Uganda. La misión esencialmente es de ayudar, crear condiciones, crear una situación, una atmósfera donde todos los somalienses pueden sentarse en una mesa redonda y discutir sus problemas. Cualquier persona, ya sea el Shabab, ya sea del gobierno, quien sea, pero también deben participar los líderes de los clanes, clan leaders, elders, religious leaders, non-government organizations. Nosotros pensamos que todos estos deben participar en el proceso de la paz. No va a ser nada más una participación del gobierno o de los miembros de la oposición, sino que todo el pueblo debe participar. Esa es la única forma de garantizar la paz en el futuro. Ayudamos también en abrir el acceso a Mogadishu, generalmente aeropuerto y kilómetro 4 y el puerto de Seaport, que son lugares que nosotros controlamos. Y eso quiere decir que los vuelos pueden llegar a Mogadishu sin mucho problema. ¿Tareas un poco de vigilancia marítima para que el pago de armas sea efectivo? Bueno, no. Realmente
la parte que tenemos de un grupo de los soldados que nos ayudan en monitorear la situación en el mar y acompañar los barcos que traen relief hasta el aeropuerto, pero no tenemos capacidad de avanzar más allá del mar. wuxuu dhacay waa laba sano tuyar ka horeeya laba sano ka horeeya la afduubay waxaa lagu afduubay cayleer meesha la yidhahdo xardheere waa ka soo badbaaday alxamdulilah laakiin beriyaha lama afduubay insha allah aad u fiicanta wallaahi swishkeeda ma laskuma halay karo waa no safari maaha waa meel khataro badan waa marka ilaahna waa waxaan ku soconnaa tawakkal cala allah ku soconnaa waa meel aan safe ahayn sidee marka ku dhacday in idinkoo aad bixin wax madax furasho idinku soo daayaan waxaan la hadalnay deegaanka dadka deegaanka odayaasha deegaanka xardheere ayaa na saacideen inay noo sii daayaan marka alxamdulillah lagu guulaystay waa laga sii daayay laba sano ka hor ahayd marka odayaasha ma burcadbadeedda ma ka awood badan yihiin oo warkooda ma ka ag socdaa sidee waa nasiib wallahi waa nasiib baylaki waa nasiib waxay mararka ugu horreeya buuta afduubka ay bilaabaan ahayd marka nasiib wanaag waxaan helnay inaan naga saacidaan odayaasha dhaqanka ama culammada meesha degan dadka ku nool aagga xardheere ayaa waxay nagu saacideen inay nagu saacidaan sii deysmaa maraakiibta because waxaan wadnay shixnado ay leeyihiin dad ganacsataan wadnay adinka marka mala xiriirteen markaas burcadbadeed oo lacag maan la xiriirnay ayaga waxaan la xiriirnay odayaasha deegaanka because waxaan dhahnay waxaan wadnaa alaab ay leeyihiin dad ganacsataa Soomaaliyeed dadkuna u baahan yahay xoolo marka odayaasha dhaqanka iyo odayaasha siyaasiyiinta iyo beelaha maaha degan xiriir aan la sameyn ayay waxay noogu fudaatay inay maragtan siiyaan ayaa waxaan u dirnaa policeman ciidamada booliiska ayaa waxaan siinaa dooman dheer ayaan siinaa 40 mayl markuu dekada markuu ku soo dhawaado 40 mayl 50 mayl ayaan uga daba tagnaa oo war tagnaa ciidaman leenahay booliiska ayaa waxaan siiyaan nimanka maamulka dekada ayaa ciidan booliiska siiyo waxay nagu saacidaan marka inaan soo xirno marka 40 mayl aan ka keenno 50 mayl booliiska saar muxuu ku yiri wax ma ka maqshay magacyada ragga burcadbadeedan hogaamiyo kale ma suurto kartaa inaad barato ama inaad aragto xataa intuuga burcada inaad barato ama aad aragto xataa ma suurto kartaa because wuxuu ku dhac jiraa baddas ku dhac jiraa laakiin waxba kama maqlimiya nimanka macnaha hogaamiyo kolley magaca ma maqlaysid laakiin nimanka qaar la xiriiray waa helaysaa ama telefoon kula xiriir kartaa laakiin ma ku sheegay magaciisa because nin tuuga ee ku dhacay magacayga hebel la yiraahdo ma ku dhigi karo maxaa xal u aragtaa marka adiga fikir ahaan si looga gudbo macnaha falalkan burcada waxaan xal u aragnaa haddii aan nahay dadka charterrayda ah ee soo kireysta maraakiibta ka timaada Dubai Mombasa Far East ka timaada waxaan xal u aragnaa in loo helo nimanka burcadbadeedda ah ciidan xoog leh oo na saacido oo nimanka tuugada la dirro in la helo ayaan xal u arkaa xal kale ma leh